waad mahadsan tahay sidoo kalena kula wanaagsan wadayaal wararka ciyaarahana waxaa ka mid noqon doona kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo kooxda Chelsea ka reebtay FA Cup xidiga kooxda Barcelona Lionel Messi oo ka hadlay arrimo badan oo ay dhawaan buunbuuniyeen saxaafadda qaaradda Yurub qodobadaas iyo qodobo kale ayaan daawadal ku eegaynaa ee u diyaar garooba kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa kooxda Chelsea ka reebtay FA Cup kadib markii ay 2-0 uga adkaatay ciyaar xiiso iyo xamaasad lahayd oo dhexmartay kooxaha Manchester City iyo Chelsea ayaa ka dhacday garoonka Al-Ittixaad ee magaalada Manchester waxaana ay guusha raacday kooxda martida loo ahaa ee Manchester City ciyaarta oo labada kooxoodba ay ku bilaabeen qaab ciyaareed wanaagsan ayaa kooxda uu leeliyo Belgrade ee Manchester City kusoo tashatay inay guul kala hoydaan garoonka Al-Ittixaad Steven Jovetic ayaa gool qurux badan u dhaliyay kooxdiisa Manchester City daqiiqadii 17 ee qaybtii hore markii uu daba mariyay goolhaye Peter Cech oo daawade ka ahaa kubadda ونهاية في منتهى الروعة واحدة من سيلفا الثانية من جيكو الثالثة من يوفيتيتش الرابعة أين في مرمى تشيلسي بداية للسيتي انطلاقة للسيتي وفرحة في ملعب الاتحاد qaybtii hore ee ciyaarta ayaana lagu kala nastay 1-0 oo ay hoggaanka ku haysay kooxda Manchester City waxaana markii la isku soo laabtay nuskii saaca ee dambe ay kooxda Chelsea soo qaaday weerar markii ugu horeysay ay soo dhaaftay daafaca Man City laakiin waa ay iska qasaariyeen fursadii ugu horeysay ee soo martay kooxda The Blues Manchester City oo ka hor ciyaarta ku soo tashatay inay ka argutaan dhikooda Chelsea oo laba guul daro xagaagan ka soo gaartay ayaa sii kordhisay weerarka waxaana taasi ay keentay in Samir Nasri uu goolka labaad u dhaliyo kooxda hantiilayaasha Carbeed ee Manchester City markii uu baas qaabaysan ka helay laacibka reer Spain ee David Silva daqiiqadii 67 kubadaysashada oo ay u sinaayeen labada kooxood ayaa waxa ay Chelsea isku dayday inay xoog ku jiraan dhanka daafaca ee Manchester City waxaana laacibka reer ee Mohamed Salah uu kubad xirfadaysan afka hore u dhigay Oscar laakiin laad qurux badan oo uu Oscar ku gamay shabaqa ayaa waxa ay ku dhacday ciyaaryahan Lescott ciyaarta ayaa ku soo idlaatay 2-0 oo ay guusha ku raacday kooxda hantiilayaasha Carbeed ee Manchester City waxaana kooxda uu leeyahay maalqabeenka reer Russia ee Chelsea ay gabi ahaanba ka hartay tartanka koobka boqortooyada England ee FA Cup dhinaca kalena tababaraha kooxda Manchester City Manuel Pellegrini oo ciyaarta kadib la hadlay saxaafadda ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay guusha uu ka gaaray dhigiisa Chelsea waxaana uu ku nuuxnuuxsaday inay dhamaatay ciyaartii maskaxeed haatana loo baahan yahay xirfad ka duwanta xidiga kooxda Barcelona Lionel Messi ayaa ka hadlay arrimo badan oo ay dhawaan buunbuuniyeen saxaafadda qaaradda Yurub laacibka reer Argentine ayaa ka hadlay arrimo badan oo ay ugu horeyso hadaladii saxaafadda Yurub ay baahiyeen dhawaan taasoo ahayd in Messi uu ka lumay qaab ciyaareedkiisii wanaagsanaa ee lagu yaqiinay Messi ayaa sheegay inuu galay dhaawac dheer waxaana uu xusay inuu haatan ku jiro xilligii uu ka soo kabsan lahaa isagoo tilmaamay inuusan ku mashquulin hadallada ay saxaafaddu baahisay isla markaana uusan muhiimad gaar ah siinin xidigan heerka caalami ee xulka Argentina ayaa sidoo kale ka hadlay eedayntii dhawaan uga timid tababarihii hore ee kooxda Barcelona Angel Caba kaasoo sheegay in qaab ciyaareedkii Messi uu hoos u dhacay laakiin Messi ayaa sheegay inuusan garanayn sababta uu Angel Caba ugu soo jeediyay hadalladaasi waxaana uu xusay inuusan muhiimad siinayn hadalladaasi oo kale laacibkan ayaa sidoo kale ka hadlay suurtagalnimada ah in xulkiisa Argentina uu ku guuleysan karo koobka adduunka waxaana uu sheegay in xulka Argentina uu ka mid yahay xulalka u sharaxan inay ku guuleysan karaan koobka adduunka ee dhawaan ka furmaya dalkaasi Brazil ugu dambeyntiina kooxda Arsenal ayaa qorsheynaysa inay xagaagan dalab aad u sareeya ku soo iibsadaan weeraryahanka kooxda AC Milan Mario Balotelli Arsenal ayaa qorsheynaysa lacag dhan 30 milyan oo geni oo ay xagaagan ku soo iibsanaysa Super Mario Balotelli waxaana kooxda The Gunners ay haatan bilowday wadahadal arintaasi ku aadan Arsenal ayaa si rasmi ah u haysan weeraryahan qanciya kooxda waxaana ay baadi goob ugu jiraan inay helaan gool dhaliyo wanaagsan iyadoo isha tababare Arsene Wenger ay soo qabatay weeraryahanka AC Milan Mario Balotelli oo winka aaminsan yahay inuu wax badan ka bedeli karo dhinaca weerarka لاعبkan dabeecadda qalafsan ayaa horay ugu soo ciyaaray kooxda Manchester City xilligii uu joogay Mancini
xubintii isboortiga ee aad kala socoteen telefishinka caalamiga Universal Studios magaalada Cape Town ee waddanka South Africa qiyaar xilligan waa inaga intaas mar kale idinku duwo studio iyaga magaalada London.